munaasabad kooban oo lagu maamuusayay taariikhda ay leedahay buugaga qaar iyo murtida laga dhaxlo ayaa lagu qabtay xarunta dhexe ee akademiyad goboleedka afka Soomaaliga ee la soo gaabiyo aga waxaana munaasabada aqoon isweydaarsiga ah ka soo qayb galay hal abuura Soomaaliyeed oo qoray buugag badan iyo sidoo kale aqoon-yahano ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha akademiyad goboleedka afka Soomaaliga ee aga ayaa sheegay in taariikh muhiim ay tahay in la qoro aragti u gaar ah qoraaga Soomaaliyeed si bulshada uu kaga tago waxyaabo murti leh isagoona ku baaqay muhiimadda ay leedahay akhrinta iyo sidoo kale qoraalada lagu daabaco buugaga casriga ah buugga uu ii soo faray waa fariin mas'uul buug oo dhan waanigii idin iri buugga qof qura mas'uuliyaddiisa ma hayo oo kan qoray ahi fariin u socota qof kasta oo ka howlgala soo saarka buug qoraaga buugga oo dhab ah in la akhriyey tusaalihiisii iyomaa labada horreeyey laba tusaalaan hayaa waxaa jiray buug laba idaajaa iyo boobe yuusuf waxay deeley maansadii deeley baa midba buug ka qoray nin ibraahim hawd lagu naanayso ayaa qoray gorfaynta deeley buug dhan oo ah marka buug laga qoray sow lama akhriin waa tusaale aniga ruuxaddayda kan yar waa igu soo maray oo aqoon iyo afgarad baan qoray aqoon iyo afgarad jaamac muuse jaamac gorfaynta masraxiyad buu qoray uu ku faaqidayo ku gorfaynayo kii aan qoray marka kanuna waa tusaale buug la akhriyey haddii wax laga qoray waa la akhriyey kii mas-uuliyadda guud anwade eh fariintaasi waxa wada wadaaga qoraaga buugga hantiilaha buugga tifaftiraha buugga daabacaha buugga suuqgeeyaha buugga soo bandhigaha buugga iibiyaha buugga mas-uulka hogaaniyeed ee howl maamul buug oo laybareerigu ku jiro ilaa hoggaanka siyaasadeed ilaa halka u sarraysa waa fariin hanasho hanan waayey buug maca mas-uulka u sarreeya siyaasadeed baanu niri xil baa ka saaran sidee waynu aragnaa madaxweyneyaal waa bandhig waa maalintii bandhiga buugga ee meel heblaayo all waa wada international dhammaantood meel halkaasana ma dhaafsiisana dabeedna maqas buu soo qaadaayo buug farkii buu mas-uulkii furayoo inuu dhex maro oo arko waa wanaagsan tihiin buugag baa la qoray waa tagaa dhiirigelinta imaatinku waa dhiirigelin waa waxtar laakiin taakulada mas-uulka ilaa yaanu qofka wax qoraana waxaan tirada badan oo mas-uuliyadeed idinku tahay inaad ogaataan buuggaygiiba anigaa qoray oo anigaa la tegey oo markaasaan meel geeyey oo anaa daabacday oo anaa qaadayo meelaha la marmarayo oo agaasimo guud aan abti u ahay odhanaya 40 iga qaado oo hay-adda meel ku xidh qol oo odhanaya anigaa suuq geynaya oo anigaa tafaftiraya oo eeganaya oo wixii aad qortay haddaad tafaftirto waa isla qoraalkii ma waxbaa ka tirmaya oo ka bedelmaya aniga maaha hawsha buug soo saarideedu waa hawl wadareed oo ilaa mas-uulka u sarreeya uu wax ku leeyahay waa mas-uuliyad la wadaago hantiilaha buugaga ururiya dad baa anigu ilaa 53 buug baan hayaa meeluu ka qaaday wuu akhriyey wuu hayaa hadda waa la hayaa buug maxaa lagu falaayey Soomaaliya qolo badan oo zoomka markay galaan ama sawir iska qaadayaan buug meel yaala guriga 4 xabo yaala la isku aadiyaa si aad u muujiso inuu buugag hayso laakiin se waa xabisan yahay buuggaasi wuu ooyayaa fariinta buugga mas'uul Cabdulqaadir Xasan Barrow TV-ga raadiyaha Danan Muqdisho